xubnaha komishanka qaranka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta ka qayb galay munaasabad dib loogu furayo qaadashada kaararka codbixiyayaasha. Munaasabadaasi oo lagu qabtay Hotel Berbera Beach ee magaalada Berbera oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera, madaxda xisbiyada iyo dadka marti sharaf ah ayaa la sheegay in lagu qaadan doono kaararka codbixiyayaasha oo ay qaadan doonaan dadka hore aan kaararka u qaadan, kuwa gaangaaday iyo waliba kuwa ay kaararku hore uga khasaaroobeen. Waxaa la sheegay in socon doonto muddo 4 maalmood isla markaasina ay ka bilaabi doonto 13 bisha. haatan aynu ku jiray fadda inagu soo hayso guud ahaan deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil. leenahay dadka lagu wacigeliyo qofkii is-og inuu hal mar isdiiwaan geliyay inaanu kaarkiisii doonan in loo hayo oo wixiisu xalaal ahaa oo uu heli doono ha lagu wacigeliyo oo uu sugaano 2 jeer isdiiwaan geliyo. qodobka labaad waxa weeyaan goobedel iyo kaar bedel. goobeddelku waxa weeye sidii la sheegay 23 degmo ee dalka ayaa loo kala guuri karaa. qof waliba degmadu doonu qaban karaa. Berbera intuu ka guuraa uu saylac tagi karaa, qof halkaa degi karaa, ka dalban karaa kaarkiisa. degmo kasta oo dalka ka mid ah buu qofku tagi karaa, u bedelan karaa. marka taa goobedel baa la yiraahdaa. kaar bedel baa jira. kaar beddelku waxa weeye dadkeenu easy come easy go wixii bilaash ah ma xaafidaan. kaararka aad baa loo tuuray. dadka 30 40 50 inay ku dhawaadaan baanu ka cabsi qabnaa kaararkii tuuray aan haynin. sidaa darteed sharcigu wuxuu furayaa ama qofkii ku codeynaya inuu kaar haysto. komishanka waxaa qasab ku noqotay in dadka kaararkii loo bedelo. waxay iyaguna dalban doonaan 14 casho ee 23 degmo oo kaliya bay oolaysaa. kaar bedel buu dalban doonaa. macnuhu se maaha in meeshiisii laga bedeli doono. Berbera imanaya kaar bedel buu dalbanayaa, laakiin halkuu ka codeyn jiray baa loogu qoraya. tuuladiisii buu la tegayaa hadhowto. ma se dhigi karno goob kasta oo meel walba sanduuq lama geyn karo. dadkii kaararku ka lumay waa inay degmooyinka isugu yimaadaan. dadku waa wada qabaayil weeye, qof kastaba qabiiluu ka soo jeedaa. waxaa caankaa gudaheenna ama Soomaaliland ama inta Soomaaliya ku hadashaba caankaa inaynu faan badan nahay oo reer u sufaanaan oo yidhaahdaan waxaan nahay laandheere. maanta waxaa laandheeraa oo runa oo laandheeraha saxda ah ninka maanta kaarka qaata ee isu diyaariya codbixin kaasaa ah. kaasuu baa faani karaa. kaasaa sheegi karaa inuu 2 nin la soo baxayo, inuu 5 nin la soo baxayo, inuu hal mid ku eeg yahay. weliba inta dee lagu faanay reeruhu sheegtaa ilmaha yar caawa dhashay odayga gaboobay toona lama tiriyo. waxaa la tiriyaa mudakarka yaa col hortegi kara baa la yidhaahdaa. doorashadu waa col weeye, col baa la hortegayaa, waa la cadgoosanayaa. maanta inoo taalla maaha doorasho albaabkeeda furanaynaaye waa diiwaangelin weyn. qof kastoo hanle iyo qof kastoo wax doonaya iyo qof kasta oo mas-uul ah oo maanta jecel in isbedel ka dhaco dalka maanta xorriyaddiisa gacanta ku haystaa. maanta ilaahay baa mas-uul nooga dhigay gobolka. waxaan u ballan qaadaynaa xisbiyada mucaaridka iyo qof kasta oo musharaxaba inuu nabadgeliyo iyo sinaan iyo cadaalada ku codeyn doonaan. cid dhibtaas aanay jiri doonin. ilaa imaka komishanka doorashooyinka oo intii imaka aanu soo wada shaqeynay shaqada soo socotay ilaa imaka si aanu ku qanacsanahay gobol ahaan shaqadoodu u socoto ama biraha iyo communicationka ha wadaan ama shaqooyinka kale ee na dhex maray ee aan xukuumad ahaan kula shaqeynaynay ha noqotee. waxaan uga mahad celinayaa sida fiican ee shaqadoodu u socoto iyo maamulkooda wanaagsan ee heer gobol, heer degmo iyo heer qaranba leh. intaa waxaan ku darayaa oo kale fariinta aan dadweynaha reer Saaxil farayo oon leeyahay maanta ha isdiiwaangeliyaan, si nabadgelyana ha isku diiwaangeliyaan. arrintaan ayaanay fudaysanin. Cabdisalaam Xariish Cusmaan, TV-ga qaranka Soomaaliland, Berbera.